هديت قلبي okay intaas bal aan uga soo gudubno marka intaas aan uga soo gudubno barter trade maxaa la barter trade muhiimadiisa iyo caqabadihii lagala kulmay intaas aan uga soo gudubno okay haddeertaan waxaan qaadan doonaa marka meaning of money lacag maxaa loo yaqaanaa lacag maxaa loo yaqaanaa lacag macalin haddii laga helo saddex shay lacag waxaa la lahaa horta si guud ahaan wax kasta oo qofkan wax iibsanaan wuxuu ku iibsan karo kan wax looga iibsanaan uu qaadan karo hadhow asigana wax kusii iibsan karo kan hadhow wax uga sii iibsanaan uu qaadan karo asna wax kale uu kusii iibsan karo kan uga sii iibsadan uu sii qaadan karo wax kale uu sii iibsan karo markaas waxaa jirta ma meaning of money waa maxay money waxaa loo yaqaanaa macal wax kasta ee bulshadan isla wada qaadato si ay wax ugu iibsato okay meaning of money lacag can simply be divided waxaa lagu qeexi karaa as any item kasta ama shay kasta that is kaasoo generally guud ahaan acceptable ay aqbalayaan dadku as a medium of exchange shay ama qalab ay wax ku kala bedeshtaan medium waa qalab ama shay of exchange ay wax ku kala bedeshtaan inay tahay iyo store of value shay ee qiimahoodii ay ku keedsadaan shay qiimihiisa ay ku keedsadaan shay ee qiimo ku keedsadaan money macal maxaa la money waxaa la lahaa shay kastoo laba astaamood laga helo waaridkow waa inay bulshadu ay tahay mid aqbalsan oo aqbali karto waxaan aqbalsan waxaa loola jeedaa in qofkan hadda wax lacagta haasto gacanta ku haasto in ay tahay wuxuu wax ku iibsan karo kii uu wax uga iibsadan uu qaadan karo asna wax kusii iibsan karo hadhow waa la wada aqbalaa macna saasa loo wada aqbalay medium of exchange qaab in ay wax ku kala bedeshtaan loo aqbalay and store of value sidaas oo kaleetana ay wax ku keedsadaan qiimo wax ku keedsadaan lacala tusaalahaan haddaad maanta $1 haysatid oo hal boos aad ka gadato magaalada dhexdeeda hal boos aad ka gadato booskaas meeqo adiga kugu fadhiya kunkaas macnaheedu maxay tahay adiga boos waa leedahay sax laakiin booskaas qiimihiisa ku leedahay soo ma qiimihiis meeqo waa store of value saas aan loo wax lagu keeday money lacagtu is a dynamic concept aragtideedu waa isbedbedeshaa dynamic wax isbedbedelo aragtida lacagta laga qabo macalin waa isbedeshaa lacagtu markii hore sibaa loo arkay haddana sibaa loo arkaa waa isbedeshaa that changes taasoo isla bedesha with time waqtiga ayay ku xiran tahay 1900 markii la joogo 1900aadkii markii la joogay lacag sida loo yaqiinay money sida loo yaqiinay iyo hadda sida loo yaqaano aad u kala duwan yihiin laakiin simbir waa wax iska agdhow whatever wax kasta oo commodity bulsho is acceptable ay aqbasho to both labadaba buyer qofka wax iibsanayo and the seller iyo kan iska iibinayo in exchange si ay ugu kala bedeshtaan of goods ee badeeco and service iyo adeeg is referred to as waxaa loo yaqaanaa money ayaa loo yaqaanaa lacag ayaa loo yaqaanaa qeexitaankeeda waa calaamad laba qeexitaan money waa taas midda kood waxaa loo qeexaa general acceptable mean of exchange and store of value midka labaad waa maxay wax kasta oo bulshada isla aqbasha wax lagu soo iibsan karo waxna la iska iibi karo ayaa waxaa loo yaqaanaa money lacagtu is means mid saddexaad haddana money lacagtu is the means of payment waa habka wax la isaga bixiyo lacagta dukaanka aad ku bixiso lacagta iskuulka aad ku bixiso lacagta dhakhtarka aad ku bixiso lacagta baabuuraha aad ku bixiso means waa habka of payment wax lagu bixiyo especially gaar ahaan coins shilinka shilin macnaha baasha madax iyo xarash madax leh coins notice iyo lacagaha warqadda shilin Soomaaliga oo kale warqadda given taasoo la qaato la siiyo unaccepted ayna qaataan in buying markii wax la iibsanayo and selling iyo wax la iska sii iibinayo labadaba money maca laba shay laba stam wixii laga lahaa waa arki doonaa wax kasta oo dadku ay aqbalaan qofkii wax ku gataan lagu sii qaadan karo qofka lagu sii gudbi karo ayaa waxa loo yaqaanaa money ayaa Allah evolution of money marxaladkii ee soo martay lacag evolution of money marxaladii ee kala duwan ee soo martay lacag money lacagtu macna saan soo sheegnay waxay soo martay marxalado kala duwan ayay soo martay marxaladay soo martay waxay ahayd horta shay in shay lagu iibsado bur lagu iibsado bariis lagu iibsado neef lagu iibsado markaas waxaa loo yaqaanay commodity money ayaa la yiri maxaa la yiri commodity money badeeco lagu iibsado lacag ayay ahayd markaas dadkii waa ay soo gudbeen waxaa yimid wadanka Shiinaha ayaa waxa uu sameeyay tuureeyo iyo birar iyo waxyaabahaas ayuu sameystay
adiga waa wadankii ugu horreeyay wax lacag u eg samaysta laakiin wixii ugu horreeyay lacag ahaan u isticmaalo waxay ahayd aleesha baashaan loo yaqaano aleesha baashaan loo yaqaano ayay ahayd aleel waa arki doonaa metallic money waxaa ku xigay metallic money lacagahan laga sameeyo birta sida dahabka qalinka الذهب والفضة dahabka qalinka iyo kubarta baashaan nuxaasta macdanka baashaan nuxaasta ayaa kuwaas ayaa metallic money lacagahan hadda Soomaali way lahaa jirtay lacag sidan oo kaleeto waxaa ka mid ahaa shilin kumin taano waxyaabahaas dhan waxay 5 shilin dhamaantood waxay metallic money ayay ahaay coin age waa islaamid metallic money dan ayay hoos imaanay waa lacag tii shilinka waa waxaan dhan jabtaro waaweyn ayaa kaligood laga qoray evolution of money kaligiisu jabtari hadda marka jaamacad soo gaartaan ay arki doontaan insha Allah laakiin haddeertaan waa jabtarkiin waa si uu hordhac buu ka sameeyay coin age waxaa loo yaqaanaa lacagaha shilinka laga sameeyo paper money waa lacag shilin Soomaali lacagaha waraaqaha laga sameeyo tan shilin Soomaaliga oo kaleeto midda dollarka oo kaleeto paper money ayaa la waa lacagaha laga sameeyo waraaqada credit money waa lacag waxaan isku soo xigeen tan waqti ay ahayd metallic money waqti ay ahayd coin age waqti ahaa paper money waqti ahaa haddeertaan waxaa la joogaa marka credit money ama plastic money lacagahan lagu sameysto kaararka plastikada lagu sameysto fiat money ayaa hadda la joogaa oo ah lacag aanan lahayn wax oo raad raaca ama si individual EVC oo kale taa kamid waa lacagahan hawada ayaa kamid okay evolution of money marxaladii kala duwan ay soo martay lacaguhu money lacagtu has evolved waxay soo martay through various stages dhowr marxaladood oo kala duwan wajar kuwaas oo kala ah commodity money in badeecada lacag ahaan loo isticmaalo metallic money in birihi lacag ahaan loo isticmaalo sida dahabkii qalinkii iyo nuxaastii wixii la mid ah coin age shilimaadkii waagi la isticmaalay paper money lacagihii waraaqadaha lacag laga dhigto sida dollarkii oo kaleeto credit money ama plastic money lacagahan shayda loo isticmaalo sawirada gadaal mid ka iyo fiat money lacagihii haw ahaan loo isticmaalo okay dhamaantood waa kuwana marka this is kan waxaa loo yaqaanaa marka shells waa lacagtii ugu horreysay oo dunida laga isticmaalo wixii lacag ahaan loo isticmaalo oo dunida laga isticmaalo waa aleel waa baalaha hadda gabdhaheena qaarkood oo isticmaalaan kuusha ay isku xirtaan tan waa goldigii dahabkii qalinkii iyo nuxaas oo baashan waxaa la kubar tan waa gold waa dahabkii tan waa silver ama macdankii tan waxaa loo yaqaanaa waa leather money waa mar dunida waxaa soo martay loo isticmaali jiray maqaarka lacag ahaan loo isticmaali jiray in la farsameeyo lacag ahaan loo isticmaali jiray ayaa soo martay leather money ayaa la paper money waa tan waa shilin Soomaaliga oo kale ayaa ka mid ah waa paper money lacagaha waraaqaha laga sameeyo ku jira kuwana waa plastic money kaarar ayaa loo sameeyaa qofka bangigiisa ayuu kaarkiisa caadi ku isticmaalaya iyo mid fiat money oo EVC camal oo taqaanaan intaas oo isugu jirta okay characteristics astaamaha ay leedahay of money lacag goorma lacag la dhihi karaa lacag waxaa lacag la dhihi karaa markii 9kan astaamood laga helo lacag waxay lacag tahay 9kan astaamood hadii laga helo hadii 9kan astaamood laga waayo lacagtaasu lacagnimadeeda wax badan ayaa ka dhim okay 9 astaamood maxay kala yihiin astaanta koowaad waxay tahay number 1 lacagtaanu waa inay tahay lacag la aqbali karo bulshada dhexdeeda bulshada isticmaalaysa oo wada aqbali karto lacag oo meelna laga aqbalaa meelna laga diidaayo lacag ma noqon haddii lacag la xamar dhexdeeda ka waran laho lacag wixii bakaar dhexdeeda lacagtan dhinac waa laga isticmaal dhinac waa laga diidaa waxaas lacag ma noqonay acceptability lacagtaanu waa inay tahay lacag la wada aqbalsan yahay bulshada meesha ku wada nool oo isticmaalayso waa in ay tahay lacag ay wada aqbashan tahay durability ama durability lacagtaanu waa inay tahay lacag waari karto waareyso macnaheedu waxaa loo jeedaa lacag waqti dheer sii jiri karto oo aanan hore ka baaba'aynin waa inay tahay durability lacagta fiican oo tayada leh waxaa lagu ogaadaa waa lacag waari karto divisibility qodobka saddexaad waa maxay divisibility waa lacag kala qaybsami karto lacag la kala qaybsami karto lacag soo kala qaybsami kartaa hadda lacag tusaale ahaan $1 $2 $5 $10 intaas waa kala qaybsami kartaa Soomaa sida Soomaaliga oo kale lacagta Soomaaliga waxay lahayd shilin kumin taano way kala qaybsamaysaa markii hore nus shilin 5 shilin 20 shilin 50 shilin 1 shilin
hadda anaga 1000 shilin bis aragnaa soo ma 1000 shilin divisibility waa inay tahay lacagtaanu lacag qaybsami karto lacagtan haddii tahay lacagta yale waa inay cisho kartaa awoodeed okay qodobka saddexaad afaraad aan u imaano cognizability ayaa la waa in la aqoonsan karo lacagtan haddii lacala shilin lacagta la tuso qof gobol joogo iyo qof gobol kala joogo waa in lacagta isku si u aqoonsan karaan waa in lacagta lacag hal dhinac bis laga isticmaalay dadku ay wada aqoonsan karaan oo dadka aysan ku wareerin haddii lacala qof ajnabi wadankaagu yimaado lacagtaada raba inuu isticmaalo waa inuu kala aqoonsan karaa lacagtaada waxay tahay oo uusan ku wareerin cognizability ayaa la okay homogeneity midka saddexaad homogeneity midka shanaad homogeneity ayaa la homogeneity lacagta wanaagsan waa in markii la sameynayo ee laga sameeyo waxyaabo isku mid ah waa in waxyaabo isku mid hadda waxaa maqasheen Soomaaliga lacagtan falis waa meel lahaay meel qaarkood tan tii saxda ahayd waa tan tii Puntland waa tan waa tii gobolada dhexe waa tan waa tii Hebelo tan waa tii Xamar waxaad maqasheen Soomaa farqigaas maxaa keenay markii la sameynayo ayaan isku wax laga soo sameyn lacagtaas ya homogeneity homo waa same genity waxyaabaha ka samaysan waa genetics ka waxyaabaha ay ka samaysan tahay lacagtaanu waa in ay isku mid ay ahaadaan hadhow isku mid ahaadaan waxaa sahlan in si sahlan loo aqoonsado waxaa sidaas oo kale sahlan in si sahlan loo qaybiyo waxaa sidaas oo kale sahlan in ay waarto waxaa sidaas oo kale sahlan in bulshada ay wada aqbasho intaas oo fahmayna Soomaa okay astaamaha kale ee leedahay waxaa ka mid ah portability waxaa leedahay lacagtan waa in la qaadi karaa inaad jeebkeena lacagta haddaan ku rito inaan u qaadi karo oo aan geey karo gobol meel kale aan gees ku la safri karo aan dhaqaaji ka dheereysan karo waxyaabaas dhan portability waa inaan qaadan karo stability in value waa inay qiimo ahaan xasilan tahay qodobka kale toddobaad stability waa inay xasilan tahay in value qiimaheed waa inuu xasilan portability aan ku laabto waxyar wadankan Zimbabwe oo hadda qaaradda Afrika ka tirsan caasimadiisa Harare qofku ayaga lacagtooda sicir bar aad iyo aad u fara badan ku dhacay qofku markii uu rabo in uu maqaayad galo lacagtooda waa in lacagtu maqaayad uu galo waa inuu gaargacan ku soo qaataa tiradeeda lacagtiina ma kala laba astaamood buu weelaada kow divisibility horta lacagtii ma kala qaybsamayso labo portability waa la qaadaa hadii lahan waa adag tahay macnaheedu waxay tahay sababtoo lacagtii aad iyo aad u fara badatay sicir bararkii ku batay inflation waxyaabo badan oo kale taas sabab dib ka arki doonaa laakiin qofku markuu rabo inuu maqaayad u aado lacag badan ayuu qaadayaa gaargacan lacag ku qaada hadhow markuu soo laabanayana gaargacankii waa soo dhamaad maqaayadun buu ku sabax hadhow taas oo kale ma la qaadi karaa ama hadda $100 haddaan u baahana waa lacag badan soo ma jeebka dambe ku ridan shilin Soomaaliya jeebka dambe ku ridan waan socone cidna ka dareemayso cidna ku mashquul mayso ina yaa lacag wato ku cid ku dhimay portability waa inay tahay mid la qaadi karo marka lacag hadda ka soo qaad qofka rabo inuu 1 milyan oo shilin Soomaaliya qaado iyo qofka inuu $50 qaado yaa u sahlan $50 inuu qaado u sahlan sababteedu waxay tahay $50 uu ka badan yahay 1 milyan laakiin 1 milyan qaado dad xanuun waa portability lacagtu waa inay tahay lacag oo la qaadi karo qodobka xiga stability in value lacagtan waa inay la qiimo ahaan xasilan tahay halkii dollar waa 24,000 shilin Soomaaliya waa xasilan tahay almost muddo sanad bar qiimeed meesha soo jooga lacagtan qiimaheed saas way ku ceshanay laakiin markii maanta 15 soo kacdo bari 20 ku soo kacdo maalin ku xiga 10 weeye maalin ku xiga 25 weeye maalin kale 30 weeye qiimaheed wax xasilan ma liquidity waa inay tahay lacagtan lacag si sahlan lagu sarrifan karo hadhoodii hadduu qofkan u baahdo uu si sahlan ku sarrifan karo liquidity uu cash ka dhigi karo macnaheedu haddii lacagtan lacagtan oo tahay lacag culus inuu si sahlan uu ku sarrifan karo uu sidoo doon u isticmaali karo liquidity waxaa loola jeedaa qofkan inuu isticmaali karo markuu u baahdo uu sarrifan karo jajabsan karo uu kala bedelan karo scarcity waxaa loola jeedaa lacagtu waa inaan suuq haddii lacagtan rabo in lacag qiimaheeda ceshato ee noqoto lacag tayo leh ee noqoto inaan suuq lagu soo wada daan dadka la wada siin dadka qayb loo daayo qaybna laga haayo hadhow dadka intaas yarta inta ay haystaan ayay isku celcelinayaan hadhowdii waxaa imaanaysa marka in ay u baahdaan scarcity waa inay tahay lacag suuqa ku yar haddii suuqa ka badato waxyaabo kale taa ka dhalan karo inflation sicir bararka uu ka mid yahay badeecadu qiimaha iska qaaliyooday ay ka mid tahay waxyaabahaas dhan ayaa ka dhalan karo sagaalkan astaamood lacagtii laga helo waa lacag fiican accessibility lacag acceptability lacag la wada aqbali karo
durability lacag waareysa oo sii jiri karta muddo dheer shilin soomaaliga wuxuu ku jiraa lacagaha ugu adkeysiga badan dunida 2013 hay-adda waa hay-adda lacagaha adduunka IMF ayaa siisay lacagaha ugu adag dunida inuu ku jiro sababtoo muddo 30 sano ku dhawaada ayuu wuxuu yahay dowlad la-aan asiga iswado divisibility waa inay tahay lacagtan lacag qaybsami karto la kala jijibin karo marka lacag shilin soomaaliga waa kala jibsan shilin kumintaano waxyaabahaas dhan cognizability lacag la aqoonsan karo waa inay tahay lacagtan oo tan koobi waa tan asal waxaas dhan la leeyahay homogeneity lacagtan waxay ka samaysantahay waa inay isku mid yihiin portability lacagahan waa in mid la qaadi kara tahay stability in value waa in qiimaheedu mid ay xasilan yihiin tahay liquidity waa inay tahay mid qofkan uu sarfan karo xil walba uu bedelan karo oo ku tasarufi karo waa inay tahay scarcity waa inay tahay lacag aan suuqa lagu wada deynin oo suuqa laga functions of money qiimo lacaga shaqada ee lacagtu qabato lacagtu maxay tartaa 6 shaqo ay noo qabataa lacag koo 6 shaqo haddiisan lacagtu noo qaban waxay tarayso malaha waa qodobkooda horta koo lacagtu waxbaa lagu kala bedeshaa lacag ereyga af soomaaliga lacagta wuxuu yahaba in shaygan shay lacag ah lacayn ah oo la mid ah in lagu siiyo haddii lacag la 10 kun oo shilin Soomaaliya dhiibto waxaa lacag ah oo la mid ah 1 kiilo sokor in lagu siiyo 1 kiilo sokor iyo 10 waa isku mid sidaas oo kale medium of exchange horta number 1 waa in wax lagu kala bedeshtaa shaygan shay lagu bedeshtaa lacagtu waa in wax ku kala bedelanaa shaqada koowaad labo store of value waa in wax ku keedsanaa store of value waa in wax ku keedsanaa hadda dahabka magaale dahabka intaas uu jooga guriga intaas uu jooga waxyaabaas dhan store of value waa in wax ku keedsanaa measure of value waa in wax ku cabirnaa wixii wax lagu cabiraa lacagtooda si unanimous si isku wada mid ah wax lagu cabiraa marka wax la sheegaa lacag ahaan loo sheegaa lacag ahaan ayaa loo sheegaa shayga intaas uu jooga laba erey store of value iyo measure of value waa isku dhow yihiin xogaa waana kala duwan yihiin measure of value shaygan kiilo sokorta meeqa waay haddii lagu dhaho measure waa shayga qiimihiisa la sheego laakiin store waxa waa shay qiimo lagu keedinayo lacala tusaale ahaan shaygan hadda markaad boos aad gadato booskan qiimaha uu kugu fadhiyo booskiin waa leeda qiimihiisiin waa taqaana sooma store of value qiimaha lagu keedinayo marka unit of account waxa lagu cabiro waa unit of account wax lagu cabiro waa unit of account waa maxay wax lagu cabiro waa astaanta ama shaqada afaraad ee noo qabato lacagtu unit of account waa wax lagu cabiro okay qodobka shanaad waa maxay standard of deferred payment lacagaha deymaha ah lacagta taalan qofkan wax buu rabaa waxa rabaa lorgile 10 ku waay mustaqbalka qofka macalliga lorgile ma laga rabaa 10 kuna laga rabaa 10 kuna shilin Soomaaliya laga rabaa hay markaas uu sameeyay standard here in lagu jaangooyo of deferred payment lacagaha dib laga dhiibo ama lacagaha deymo dib laga dhiibo in lagu jaangooyo qodobka lixaad transfer in la wareejiyo of immovable properties badeecooyinka aan la dhaqaaji karin in lagu wareejiyo lacagta guriga u baahantay in la gado guriga marka qofka guriga booska dhama ka raramay lacagaasina guriga ku wareejina dahabaasina oo lacagaasina dahab ku wareejina waxa u baahan tahay ka qaadan lacagtu ku wareejina transfer in lagu kala wareegso of immovable properties badeecooyinka ama hantida maguurtada ah in lagu kala wareejiyo hantida maguurtada in lagu functions shaqooyinka of money ay lacagtu leedahay functions shaqooyinka of money ay lacagtu leedahay there are waxa jiro 6 functions 6 shaqo oo that are kuwaasoo considered loo tixgeliyo as the primary functions inay yihiin shaqooyinka asaasiga ah ee of money ee lacagtu ay qabato they are ayaguna waxay kala yihiin saddexdan ayaa macallin waxay yihiin saddexda hore medium of exchange in wax lagu kala bedesho lacagta waxbaa lagu kala bedeshtaa labo store of value lacagta waxbaa lagu keedsadaa saddex measure of value lacagta waxbaa lagu cabiraa afar unit of account lacagta waxbaa lagu qiimeeyaa shan standard of deferred payments lacagta deymaha lagu bixiyaa haddii wax deyn iyo waxyaabo horumaris aan qaadatay wixii dib lisaga dhiibaa deferred dib ka dhiibis waa deferred payment lacagaha ayaa dib lisaga dhiibaa transfer of immovable property transfer waxaa lagu kala wareegsadaa of immovable properties hantida maguurtada ah ayaa lagu kala wareegsadaa intaas oo silfaana soo ma
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي